aan ku siinaa okay moderatorada inaad meesha ku jirtaan baan rajeynaya okay so brother waxaad u baahan tahay inaad fahantid marka koobaad okay guriga hooyadaaba canjeeraad cuntaa wax aad naag si loola hadlo ka fahansan tahay ma jirto 18 baad jirtaa ilmaha yarar ma idinku soo dhisayo laakiin waxaan rabaa inaad ay fahmaan ragga iyagoo kala 19 20 rag jira baa daawada so waxaan rabaa bal inaan fahansiiyo adoo guriga hooyadaa jooga oo aan waxba kala ogeyn oo ay ka wareersan tahay haddana maxaa la dhihi jiray inaad ku heesaysid waan ku xumaynaa xaliya bidaar weynaan ku xumaynaa hadda aragtid nin maxaa la dhihi jiray samaynaya ceebayn ama bidaar ha ahaato ama wejigaaga ha siduu eegaada waxay rabtaa noqoto okay bidaartaa ninkan wax weyn la meeshuu dhihi lahaa shiidnimadaan ka baxaya waan isbedelayaa macallin thank you ninkan wuxuu u malayaa maadaama uusan bidaar lahayn inay isagu naagaha la hadlayaan young man way ogtahay guriga hooyadaa baad joogtaa canjeeraad ka cuntaa naa kula hadlaysa ma jirto trust me saad u malayso shaxda meeshaad u malaysa inay kaa jirto kaama jirto okay so ciyaaladan hadda 18 19 17 markaan jiray aniga waan shaqeynayay I was hustling brother making money okay 17 markaan jiray lacag baan sameynayay mushahar aniga leeyahay soo galay brother but you loser xaafadda hooyadaa fadhiya shiida qad haysta maanta internetka aqoonta iyo wax kastoo yaala haysta wax aad kala ogtahay aysan jirin luqad kale oo extra aad taqaana aysan jirin but still حتى ما حمان لهين هذا هيسي لهيدي حليا أنكم حماينا that means حليا is your fucking father okay وما هيسيد شيء باتهاي وعدناك حتى وجيسيد ما هيسيد هبا نقطعني قاعدين دقيقة سهور شيء ستة okay لكن فهن يا مان لعك بعضو باهنتاي سيادو نولاتو سيد الله هادلو إنا تقانيد بعضو باهنتاي okay 18 jiradeenna iyo 19 jiradeenna waxay dhageysanayaan hees ku bilaabanaysa anaa ku waso like the idea wasmada baaragan maskaxdooda ka weynaatay ajirta qooqaas oo adolo qaangaarnimada okay iga jiro waxa ka fikraysa lacag ku sameeya see wax ku noqda see noloshayda ku dabara 17 jir 16 jir baa igu dambeysay inaan maxal dhigi jiray hooyada aabahay ku laabtay wax siiyaan adiga ma iska barbardhigay ama isma ka barbardhigayo chance ka aan xilliga haystay mid ka fiican maanta ma haysata yes waad haysataa laakiin waxa maanta rag badan ay dhageysanayaan ee maskaxdooda ku jirto waxa waaye okay waa kuwasa naaga ku xumayna xaliya ku xumayna lacagan siina ma fahansantiin ideology-ga lacagan siina shiidaati wax ma haysatid yaan maan ragga badankooda broke way laakiin waxay isku dayaan oo kor iyo hoos ay u tagaan inay naag maxaa la dhigi jiray lacag u diraan yarban maalin la hadlay wuxuu u dhahay dukaan baan saaxiib oo ka shaqeeya okay dukaan baan ka shaqeeya 100 iyo waxbaan qaataa ugu dhahay dollar iguma filna lacagtaasi saasay tahayna naagta aan shukaansado waxaan u diraa isbuuc kasta $20 ma ka goodaa kama goodo ma awoodo shiid ma yahay wuu yahay laakiin $20 wuxuu ku maalgashan lahaa course wuxuu ku maalgashan lahaa inuu luqad barto wuxuu ku maalgashan lahaa inuu cunto fiican cuno wuxuu ku maalgashan lahaa hal buug inuu soo gato okay boys naagahan idinma rabaan sidaa tihiin maadaama aad timo weyn leedahay kuma rabto 0.5 ma haysatid hooyadaabaad ka soo baryaysaa lacag iyadaad siinaysaa waan ku jeclahay jacaylkayga maadaama aan ka dhabaynayo hoo giftigan abaayo giftigee shiid baa tahay young man runtaan kuu sheegayaa waana waxa mawduuca maanta uu ku saabsan yahay oo ah mudnaanta koobaad maxaa iskale markaa tahay nin dhalinyaro sidee noloshaada ay u noqon kartaa mudnaanta koobaad
mudnaantiina koobaad waxaa idin ah waa kuwasa ma arkin ma wiil ciyaal yar yar oo caytamaya waa kuwasa war waxaas aniga markaan 7 jirka 8 jirka habaan dhihi jiray niyo okay taageer barnaamijka subscriber waad noqon kartaa okay subscribe saar barnaamijka subscribe saar This is the fucking generation isticmaalaya filimada Hindiga ah iyo heesaha khiyaaliga ah aaminsan noloshan daadan waxba haysanin noloshan aadan macna ka sameeynin cid ku rabta ma jirto iska ilow oo aniga waxaan taageeraa hebel boy ilaa goormaad rajaynaysaa inaad wiil sii noqo ahaatid ilaa goormaad rajaynaysaa inaad mas'uuliyad la'aan ku noolaatid ilaa goormaad rajaynaysaa inaad heesaha iyo filimada Hindiga ah iyo siigada isku madadaalisid adoo isdhahaya inaad naagaha qanacsid xaliyaa ku xumayna laakiin naa ku rabta ma jirto maan naa ku rabta ma jirto waa inaad wiilnimada ka baxdid oo aad nin noqotid okay aad baan u yaabaa markaan arko dhalinyaradan yaryar ee dhunsan ee u maleeya muhiimadda iyo maxaa la dhihi jiray meesha loo socdo inay tahay in si la raadiyo ma aha waa lagu khalday waxaas filimada iyo heesaha waaye muhiimadda siil ma aha markaad nin tahay muhiimadda lacag waaye brother muhiimadda lacag waaye muhiimadda inaad nin noqotid waaye isku kalsoon oo isdhisay isagu iska shaqeeyay dhaqaale ahaan maskax ahaan iyo aqoon ahaan iyo jir ahaan aniga jeexayga leegtaan you talking about bidaar brother naagaha lacag lagu noolaaday rabaan naagaha bidaar ma rabaan iyo tintoona tintu kirada ma dhiibto yaagmaan tintu kirada ma dhiibto 19 jir baad tahay xoog baad leedahay 20 jir baad tahay 20 jir baad tahay 22 jir baad tahay walaashaabaa ku biilaysa walaasha oo adigu la rabay inaad iyada biishaad mas'uul ka noqoto hadii aan la qabin baa adiga ku biilaysa halkay lacagta ka keentaa maybe ninka qaba inay kaaga soo qaaday ku soo tuugsato maybe inay xoogaa meel yar ka shaqayso laakiin iyada waxay abaayo telefoon baan rabay no brother okay qof kasta oo barnaamijkan daawanaya oo ku xiran ardaydayda kamid ah 19 18 20 22 ilaa 35 buu dhaxeeya markaan idin leeyahay daanyarnimada ka baxana basically waxa waaye idea-da daanyarnimadu inaad noloshan aad daalan tahay aad ka baxdid noloshan daalan ee tuugsiga ah ee shaxaadka ah ee maxaa la dhihi jiray adoon waxba awoodin aad naag u huraysid noloshaada inaad ka baxdid baan rabaa young man okay waxaan rabaa inaad mindsetkaaga saxdid iyo qaabka aad u fakaraysid like-iska socdaan okay barnaamijku bilaabanaya sida ugu dhaqsaha badan like-iska ha gaaraan 1 milyan sida ugu dhaqsaha badan okay basically 1 milyan ka yar like kuma bilaabi karayo barnaamijka maraan suud qabo maalmahan t-shirt ka qabo waa iska okay maalmahaas waxa waa broke boy baan u ekay maalmahaas it's okay laakiin maalinka odaygu suudkiisa uu soo xirto waxa waaye maalinkaas waa kala xishoonayna okay like-iskana socdaan like-iskana let's go like-iskana socdaan okay